dagaal u dhaxeeya ciidamada daacad waa madaxweynaha wadanka Yemen ay taageeraan isbahaysiga Sacuudigu iyo koox gooni goosad ah oo koonfurta dalka ka soo jeeda ayaa ka socda magaalada Cadan halkaas oo fadhi u ahayd dawladdaasi labada dhinac ayaa waxay soo adeegsanayaan taangiyada iyo hubka culus wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hore u sheegtay in goobtaasi ay xasiloonidii dib ugu soo laabatay waxayna shacabka ugu baaqeen in ay howlahooda caadiga ah ay iska sii wataan maalintii axadii kooxdan gooni goosadka oo doonaysa madax banaani ay helaan dadka koonfurta Yemen ayaa waxay la wareegeen dhismooyin ay dawladdu leedahay dagaalkan ayaa la sheegay in ilaa iminka ay ku dhinteen 22 qof dawladda Yemen ayaa tan iyo 2015 waxa saldhig u ahayd magaalada Cadan kadib markii madaxweyne Cabdirabbi Haadi Mansuur iyo golihiisa wasiiradu ay ka soo wareegeen magaalada Sanca ee kooxda Xuutiyiinta qabashada magaaladaasi ee Xuutiyiinta ayaa waxa ka dhashay duulaan ay Sacuudigu hogaaminayaan oo ka dhan ah kooxdaasi tan iyo xilligaasi waxa dalka Yemen ku dhintay 9245 qof waxaana ku barakacay tiro ku dhow 3 milyan oo qof sida ay qaramada midoobay sheegtay